السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركين حريد حسن حسين وتقنان حوكسده برتان إن كلا سو هدلايانا وحوكسده official بإذن الله تبارك وتعالى وحا إنو سو سعودية وتحنين نوها برهامش كيني لما بحي بدبادة قويسكا كارهان موضوعي وحان كوكو دي جرني دقمدا أن كتل مامين توانك نوعي وكلا بحضو ما أنت وحان كسي أن بقادينا هدي ربي هالي كنغضو دقنتي تضبات لما بحضي سرندير كداشي والنوع كمدا دقنتها cidna wax ma yeelo ninka asaga ah laakiin naftiisa ayuu u daran yahay oo hawlaha iyo maaragtay xamaalkiya shaqada iyo wax walba maaragtay culays ah ayuusan maaragtay naftiisa ugu turin xishood dartii asagoo leh yaan lagu dhihin waa ninkii calaanka waa ninkii aan wax qabsan karin iyo ninkani waa nin fiican oo maaragtay shaqada aad ayuu ugu jaban yahay adigu waxyaabo noocaas soo naftiisa ku raali gelinaya ayuu ilaa xad maaragtay wuxuu noqdaa mid aan naftiisa aan daryeelin waxaa tusaalooyin loo soo qaataa ninka la yiraahdo inaan la yaal ama ninka la degan reer xididkii haddii uusan ahayn nin siyaasad yaqaano ama maaragtay sida loola dhaqmo reer xididkii nin yaqaano haddii uusan ahayn ama aysan u kala soconayn waxa ay ka mudan yihiin iyo waxa maaragtay dheeriga ah waxa weeyaan in badan waxa dhici karto inuu u gooni noqdo wax walbo shaqo oo cidaas laga qaban lahaa sida maaragtay dhaanka sahanka xoolo raacida oodida iyo magaranaysaa wax walbo culays ah inuu maaragtay dhabarka u rito marna asagoo ka raadinaya magaca hal lagu yiraahdo waa nin fiican marna ka duulaya lagu dhihin ninkani waa nin maaragtay duleysano annaga ayuu nagu maaragtay naga warwareejinaya haddaba dhagaystayaal ujeedka hadalkayga yuusan kula noqonin inaan ahay mid isku diraayo reer xididkii iyo wiilka maaragtay inaan la yaalka ah laakiin ujeedkaygu waxay tahay inay maaragtay nimanka la yiraahdo inaan la yaalka ay naftooda daryeelaan sidoo kalena waxa weeyaan dadka maaragtay gabadha laga qabo ee ninka inaan la yaalka la yiraahdo uu la degan yahay waxa loo baahan yahay iyaguna inay u turaano naftiisa maaragtay aysan halis gelinin iyo caafimaadkiisa iyo wax walba maaragtay ninkaas qof kastaana waxa loo baahan yahay inuu og yahay xaduudka uu ka mudan yahay sodogii ama sidoo kale sodoga inuu og yahay intuu wuxuu ka mudan yahay wiilkiisa marka ujeedadeedu ma ahan inaan kala dheereynayo ama aan kala fogeynayo reer isla degan ee isjecele iswata maahan macnaheedu laakiin waxaan ka hadlayaa kaan garanaynin xilka uu ka mudan yahay wiilkiisa iyo wiilka aan garanaynin xilka uu ka mudan yahay sodogii ama sodohdii ama dhammaan reer xididkii haddaba waxaa loo baahan yahay qof kasta inuu ogaado kan kale waxa uu ka mudan yahay halkaana shaqadiisa maaragtay uu ku abbokoonaato haddii uu arko ninka inaan la yaalka la yiraahdo in reer xididkii ay ku xadgudbayaan oo waxa uusan awoodin ama dhibaatooyin ku gaara ay ku hayaan waxaa loo baahan yahay inuu ka xeeladaysto kana dego meel ayaga ka baxsan si markay ugu baahdaan oo ugu soo ciidamiyo oo keliya laakiin markasta aysan u dhicin inaysan raranin xaqiiqatan waa wax aad u dhib badan inaad la degto reer xididka waayo ceebtaada iyo wax walbo adiga kugu saabsan ayaa banaanka soo dhacayo marka waxaa wanaagsan reer xididka inaad ka madax dadabto maalinka ay xoog iyo maaragtay xoolana kaaga bahdaan aad ku garab istaagto lianna labada waalid ee gabadha had qabto waa labada waalid adiga ku dhalay oo kale waxayna kaa mudan yihiin inta ixtiraam waalidiintaada ay kaa mudan yihiin in la mida ayay ayaguna kaa mudan yihiin marka ujeedkaygu ma ahan ka fogow meel ka baxsan deg markaan ku leeyahay in aan kala jeedo wax walba oo maaragtay faa'iido oo adiga kugu qabi lahaayeen kala dheero kama waxa adiga aad ka mudan tahay wanaagga haddii ay garan waayaan waa inaad ka wajidadataa oo maaragtay meel ayagoo ka baxsan aad tagtaa aan ku soo laabana mawduuceeni haddaba waxa weeyaan surindheer kadhaasha ninka la yiraahdo waa ninka aadka u xishood badan ee naftiisa maaragtay ku haligo waxyaabo uu awoodo inuu yiraahdo ha la ila qabto ha la ila qaado iyo ha la ila sameeyo intaas ba inuu ka xishoodo waa asaga naftiisa kaliya maaragtay uu ku raali geliyo waxaan inuu qaban karo deetana dhibaato fara badan ay kaga imaado asagoo cid kale waxba ugu dhibaynin laakiin naftiisa ku ciqaabayo haddaba waxaan ku leeyahay dhagaystow haddii aad ku suganta calaamadahan qofka walaalka ah inuu ku kaalmeeyo ama wax uu kula qabto waa inaad maaragtay ka codsataa ee naftaada keliga aadan ku qancin inay wax walba qaban karto intaa kadib waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa walaashay ama walaalkay inaad nagu soo biirto oo channelkeena aad tiraahdo subscribe like and share asxaabtaada la wadaagto wixii aad noo hayso fikrado wanaagsanna waxaad nagula soo wadaagi kartaa commentiga sidoo kalena wixii aan ku khaldanahay ayadana waxaad nagu soo sheegi kartaa commentiga haddaba haddii aad naga daawanayso Facebook linkiga waxaan kuu soo dhigi doonaa meesha kore ee title-ku ku xusan yahay haddii rabbi raali ka noqdo haddii aad YouTube naga daawanaysana fadlan si naxariis leh subscribe inoogu saar waadna mahadsantahay
موضوعنا ما تلك أيون وجهي إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى أنت مثل مدى كل منا وحن إذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.